inta kale oo Soomaaliyeedna way fududahay maanta aqoontu oo qof kasta gacantiisa ku sitaa qofku wuxuu yahay meeshu ka yimid wuxuu qaban jiray wuxuu ku salaysnaa qof kasta telefoonka u wato uu kala socdaa caalamka oo dhan baa koob soo geliyay marka mar raba insha Allah raxmaan barnaamijka sinaada uu mashquulo qodobkii koobaad waxa weeyaan inaa idin xaqiijiyo xamba ku jirta suuqa ku salaysan Cabdishiid oo musharax ma ahan kan waayay inaa idin xaqiijiyo goorkaas anigu aan leeyahay rabitaan aan leeyahay qorsheyga soo baxay rabana insha Allah raxmaan oo adeerkay aad buu maasan yahay noqdoonku walaalkay iyo jarnaalka labadaba iyo walaashay waa weydiisanaya aduu khayr ugu jira Allah aduu khayr ugu jirina inuu iga celiyo weydiisanaya taas marka Allah ku xiranahay taasaan qaadanayna insha Allah raxmaan kelmadda sariicada dadku waa dhibsadaan waxay raadinayaan in la yiraahdo ama laga geliyo laakiin ama ku qanacsanaani intaas kadib waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan afreedaadkii saaco la soo dhaafay waxaa leeyahay barada bulshada lagu qorahayay iyo xalfadda ninka microphone-ka haysto waxa uu ka hadlahayo say wax yihiin maxaa qaldan soo saas ma taasaan rabo marka inaan xoogaa noqdooyinka dhaafo biidnillahi tacaala taas tii hore waxaa ugu gudbay intay walaalahay ii dhaheen rabitaanno iyo hadalna waxaa igu furan doorka warkeeda iyo dhamaystirkeedana waxaan ka hadli doonaa xilliga aan u ballamay insha Allah raxmaan haddii ilaahay i gaarsiiyo oo xalfadeeda labaad oo intaan iyo in ka badan insha Allah raxmaan aan codsan doono inay imaadaan inaan uga hadla haddii ilaahay Soomaalidu xaqiiqiyan waa dad wanaagga jecel laakiin wararka aad u faafiyo waxaa baraha bulshada ku arkaysaan warar badan iskhilaafsan shalay waxaad maqlaysaan cabshidii dowladda baa heshiiyey cabshidii dowladda baa dirtay shalay waxaad maqlaysaan hadda oo baraha bulshada wararka ka arkaynay oo aad ka akhrineyseen ka mid ahaa cabdishiid waa fakaday horta waxaan rabaa inaan idin xaqiijino ma fakarna aniga waa eka cabdishiidka laga hadlaayo baraha bulshada ka arkayseen waa ninkaan in la hadlayo dabcan sawirkii si fiican usoo jeesto sawirkii iyo aniga dib u raaco inta halkan fadhida warkaas oo ma lihi inta maqan baa u leeyahay ereygaas inta maqan baa ereygaas u leeyahay xilliga dalka uu ku jiro iyo xaaladda aan marayno iyo dalkanaga waxa uu ku sugan yahay iyo qataraha iyo hadda saacadda aan joogno dalka meesha ku socdo waa garan kartaa aqligeeda ma lihi aragtideedana ma lihi shacabkii aan shalay u naxay colaadii aan damiyey muddo halheeshka idinku ahayd maqaayadaan anay ii shidneed waa xilay aan idin dib inaan u furo ma dhacayso horta taas qabsada nin dagaalamayo mucaarad ah rabo inuu qof mucaarado rabo inuu qori qaato rabo inuu dagaal galo rabo inuu colaad abaabulo ma ihi mana ahan karo wax dhici kara ma hadda xilliga aan joognana dalku barnaamijkaas ooma baahno oomana socdo dalku doorasho ku jira ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay maxamed xuseen rooble ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ilaahay u fududeeyo mas-uuliyadda culayska oo saaran waxaan qof kasta oo siyaasi oo Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada iyo qof kasta oo Soomaaliyeed oo wax garad ah inay ilaahayna u baryaan inuu ilaahay u fududeeyo wada kasta oo wanaag ah oo doorashadaas lagu aadi karo oo dalka xasiloonidiisa ka qayb qaadan karto dalka xasiloonidiisa ka qayb qaadan karto in lagala shaqeeyo aysan dhicin in qof ku fikiro in wax khalqalgalka dalka geliyo doorashadii dib u dhigo jaanis dad raadinaya jaanis loogu sameeyo dib u dhac keeno qofna inuu isku fikirin anigana shakhsiyan marnana kuma fikiraya arrintaas waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa qaldan marka cabdishiid say wax yihiin oo su-aalaadkaas dadku haddana ay qabaan aniga xamar siyaasiyiintii deegaamada kusii lahayd oo deganeed ka mid ma ahaan jirin markaan imaado inta badan xarun dowladeed baan degi jiray muddo dhowr bilood ah hadda joogay mar safar baan ka aado turki baan ku maqnaaya Ethiopia marna oo dalka Turkiga Ethiopia u aaday labaas dal baan u maray safar iyo dana gaar aniga ay ahaa marna Muqdisho joogay waxaan ka dhex deganaa xarun dowladeed guriga ku hareeraysan oo xarun dowladeed ah baan qayb badan oo ka mid ah ka deganaa oo su'aal ahaan markii aan warka aan baafiyo xarunta nabad sugidda guriga ku dhagan baan deganaa laakiin si barafad oo shakhsi ah u deganaa
waxaan raadinayay meel halkaas ka access fiican inaan dego macallihii xaafad baan kasoo guuray xaafad baan degay ma ahan hebel baan la diriray ma inaan cabdicasiis kasoo guuro oo aan madiino dego ama waa beri dego ama bulxamay dego ma ahan in qofku uu mucaarad ku yahay taas ku fahma waxyaalaha khaladaadka waxyaalaha keenay istawareegana arrintaas inta badan waxaa laga yaabaa inay su'aalaadkaas isweydiinayaan waxaa kaloo gaar qofku u yahay bilaadanka ah ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo wuxuu qabo iyo shakhsiyadiisa iyo qofku la saaxiibayo iyo qofku la soconayo iyo qofku uu wax ku darsanayo iyo dalka xisbiyo waa xisbigu aadayo qofka asiga ka go'da gaar ahaantiisa taasna waxaan rabaa in asliyan qaabkaas loo fahmo waxaa kale oo dabcan baraha bulshada laga yaabaa inay ku qornaayeen ama arkayseen ciidamo shalay ciidamadii aa wada arkayseen oo aniga la socday cabdishiis janan oo ciidanka jubbaland kuna soo biirinay dowladda ciidankaas waa ciidan qaran dowladda soomaaliyeed baa iskale ciidan cabdishiid maaha hadallo marka badan oo cabdishiid hadduu fikirkiisaa noqdo ciidankii noocan waaye la leeyahay aad u fara badan oo baraha bulshada ku qoran baan dareemaya ereygaas waxaan u isticmaalaya wixii xaquuq oo ay leeyihiin hadday sheegtaan oo ka maqan ama askari dalacada la dalacsiiyey ah oo dalacadiisi dhaqan geli weyday ama mushaaraad ay lahaayeen oo ay waayeen aanay dowladday ku leeyihiin cabashadoodana askarta soomaaliyeed bay oo la mid yihiin laakiin ma aha macnuhu askarigii waa cabdirashiid kala socday ama askari jubbaland ahaa oo hadda askari qaran ah oo dhinac u taagan oo cabasho qabo dagaal buu abaabulahayaa colaad buu dalka gelinayaa taas ma ahan cabdirashiidna shalay go-aankii iyo nabadii iyo warkii aan qaatay iyo fikrigii aan qabaan shalay qabaa haddana qabaa dalkana shalay markaan u turahayo dalkaan u turaya allah oo shacabkii reegado oo colaadda iyo abaarta iyo cudurku iskugu darmaday maanta dalka soomaaliya oo dhan baa sariir lagu wadaa oo naxashaaran asagaa u baahan marka in la badbaadiyo soomaaliya oo dhan baa u baahan in loo naxo shalay haddaan shacabku degmooyin gaar oo ku nool aan ka hadlayay shacabka soomaaliyeed baa maanta taaska ahmiyad badan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan dareemayaa in badan oo ka mid ah hadalaadka aan leeyahay inaad jeceshiin aan kusii socdo warar badan iraahdo sii falanqeeyo maxaa adinka iyo dowladda hebrow kan ah dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idinkugu celiyo dowladdu qof ma aha dowladda soomaaliyeed waa shacabkii iyo dalkii iyo siyaasiyiin markaas dalka hogaaminayso hadda waxaa shaqada wado oo hawsha dalka wado oo doorasho la rabo dalka inuu gaarsiiyo oo qof kastoo isdiidanaa laba qof oo isdiidaneed isku keenay oo dalka inuu doorasho geeyo aan rabno waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay maxamed xuseen rooble maalin wanaag ma ogiyo xumaan nama dhex marin insha allahuna nama dhex mari doonto shalay rag aan dagaalsanayna waa heshiinay wax hadda colaad oo aniga ugu jirto dagaalana ma laha laakiin shaksiyaddiida xamar waxaan hore u sheegay inaan siyaasadda soomaaliya nin meel ooga socdo oo meel u guurahayo oo dal kale u socda aanan ahayn warkaas waxaan u malaynayaa in badan oo ka mid ah erayadaas inaad midiyaha ka dhegaysateen oo baraha bulshada kala socoteen inaan siyaasiyiin soomaaliyeed oo kala aragti duwan midba maalin la fadhiisto midba maalin la sheekaysto midba maalin la casheeyo midba maalin la dego wax barobareem ah oo ay ku tahay dalka ma ah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa idinkiiga mahad celinayaa inaad ajiibteen casuumaaddii aan idin casuunay oo u mahad celinayaa raggii dhammaan howlwadeennada ahaa waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa dalkayaga dhib badan baan soo marnay waxaa halkaan fadhiyo oo indhihi u qaban karaan dad badan oo ku dhashay dowlad la-aan dalkan kuna qaangaaray kadibna laga yaaba inay xelal ku qabteen ama maanta ku talinay halkaanay u badan yihiin dalka soomaaliya o dhan bay u badan yihiin waxaan u baahannahay dowladnimadanada aan haysano in lasii adkeeyo wanaaggeeda laga shaqeeyo qofkii leexiyo oo isku dayo inuu nidaam qaldan ama shaksiyad ama wax jecel isticmaalo sidii ka dhacday muqdisho maalmihii lasoo dhaafay o aad garan kartaan in dalku shacabka oo dhan u istaagi karo in lagu soo celin karo waddo sax ah oo shacabkan dowladnimadiisa iyo jiritaankiisa ay kusii jirayso shacabka soomaaliyeedna meel kastoo jiraan waa wanaagdoon waa dowladoon qof wuxuu halleeyana qabiil ma hallayna
قف وحو هاللي قبيل ما هاللين وحو هاللين قرن ماذا يقف كسر الصومالي كهلاو وحمرك أباهنا هاي إن شعبك الصوماليات يقف كسر وحجرده أيسن قبيل فيرين قف فيرين لا فيرين قرن ماذا الصوماليين جريتهم كل بشيء آدم وعرفنا أمريكا مع الشخصية اللي مو غنى يسوع ربع شعب الصومالي أنا كعب صدا وضدا هذا يكسر الطواح ولكن شغل يوسف سيادة العدل وحولها السياسيين حقيقي جارهان مدحوين ياش دول الجبلات هذا يقابك وحصل سارين أنا عندنا عرض كذا هذا المرة وحبان ربع ورد المرة حلوها كمرة مدحوين مش رعوني لكن أيني ما هذين هذا مرة ما أيك كل أدن لكن قف كستو waxaan rabnaa inuu ka shaqeeyo danaha ummadda Soomaaliyeed ee horumarka iyo wanaaga iyo dalka bacaankiisa iyo daawadiisa ku sii jirto oo u mahadcelinayaa xaqiiqiyan ra'iisul wasaaraha waana ku qanacsanahay waana kula shaqeynaynaa systemka doorasho oo mas'uulka ka yahay waxaan aaminsanahay inuu dalku insha Allah Rahmaan doorasho tagi doono xasilooni leh qofku Ilaahay ugu talagalaana madaxweyne ka noqon doono لكن مركي كلمة أصلية وتي مشرحين تداي أرجع استعمالها يا أضيع ذلك أولادك واستعمالها يو ورناقكم ضد وجعلنا ضد المشرحين اللي هذا أو من هذا سهاياها أنت بقى اللي راهبر وهذا حكى هذا كسر نغري لكن قف كلها وترى كلام نغري حقيقة أساس وياك هذه أربع ما سنتهين إن بدأ بعدين ما العليا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته